aad iyo aad baxsan tahay xaaladda magaalada Baydhabo aad ay u degan tahay shacabka Baydhabo soo dhaweeyeen muddo yar ayaan wadada ku soo jirnay si koor aan soo galnay magaalada 2 saac ka hor magaalada dadka aad ay u degan yihiin u faraxsan dadweynaha aad ay soo dhaweeyeen wax dhibaato ma la kulmin magaalada markii aad soo galeyseen dagaal qaraar baa dhacay marka khasaaraha dagaalkaasi uu geystay inteeb uu leeyahay taasoo khilaafa iska jirtay hadoo khilaaf jirna dagaal la'aan ma ahaanayo laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin waa ilaahay waa nagu guuleeyay xoogga Soomaaliyeed ayaa horkacaya operationka marka iyo ciidanka badbaadada koonfur galbeed hawsha waxay ku dhamaatay si fiican ku dhamaatay magaalada ku jirnaa wax dhibaato ma aragtin dadka shacabka magaaladan aad ay noo soo dhaweeyeen aad u faraxsan yihiin dadka aad u faraxsan yihiin wax dhimasho ama dhaawac ah oo dagaalkaasi uu geystay waa ogtahay dagaal soo dhaco dhimasho dhaawac inta ma dhacaysa laakiin khasaaraha aad iyo aad u yaraa ilaahay maadis magaalada hadda yaa gacanta ku haya magaalada gacanta waxaa ku haya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya ciidankii maamulka madaxweyne Cabdicasiis xagee ku dambeeyaan magaalada kuma jiraan magaalada waa ka baxeen ninkaas ku jooga xogta aad haysaan madaxweyne lafta gareen xagee ku dambeeyay ma hayno ilaa hadda xogtiisa meesha ku dambeeyay ma sheegi karno garoonka iyo madaxtooyada weli waxaa gacanta ku haya Soomaha ciidamada midowga Afrika arrintaas waxaa gacanta ku haysta la socota ciidanka midowga Afrika iyo xarunta ay degan yihiin anagu meelahaas nooma socono meel u dhowna markadeeno nimankaas Amazon waxba meel loo yaala noo sheegeen meelahan anaga aan soo dhawaanaynin ay iga degan yihiin marka wax dhibaato kama jiro arrintaas sharciyeed ku joogo waa iska oo weliba saaxiibo la ah Soomaaliya oo awaag weyn aan u hayno madaxdii kale ee maamulka koonfur galbeed xagee ku dambeeyeen iyagu hadda wixii ka dambeeyay qasab iska walasan doonaa oo ilaa yiraahdo maxaad u sheegi lahayd dadka magaalada waxaan sheegi lahaa inay isdejiyaan waxay imaadeen mooryaan ma ahan jabhad ma ahan waa ciidan dowladda Soomaaliyeed iyo madaxda dowladda federaalka yimid saa noogu soo dhaweyseen iyaan farxad iyo reereen annagana ku haynaa isdejiya qolo walba hawshooda iyo shaqadooda iyo ganacsigooda iyo howlahooda sidoo u qabsadaan wax dhibaato ku jira male magaalada Baydhabo annaga dowladaan nahay dowladana shacabka ayay ka imaatay marka mas'uuliyiin nahay annaga dhibaato uma imaanin meeshaan shaqo yaraan ka qabsanaynaa kabacdina shacabka iyaga waxay rabaan ay subsanayaan iyaga talan iskale talada gacanta waa laga bixiyay inaan gacanta usoo celino ayaan ku dadaalnay iyo soo dadka la soo dhaweeyeen aad kala sooyin waan arki doontaa sabarada waxaad arki doontaa wasiir Saadaat waxa tahay wasiiru dawlaha wasaaradda gudaha maamulkii meesha magaalada uu ka baxay marka yaa maamulaya Baydhabo iyo guud ahaan koonfur galbeed hadda arrintaas hadda aan iskaga imaan doonaa wax baadkii maamulka dhici maayo wax dhibaato ka dhici maayo anaga dowladda nahay anaga mas'uulka ah wasiirka arrimaha gudaha ahay maamulka meeshaan anaga mas'uulka nahay wixii meeshaan shaqeynayna wixii shacabka raaliskiisa waaye wax dhibaato kama jira anaga min dad soo imaaday oo shacabkan dadkan waa dadkan ahaayeen haddana hawshaas dhibaato